الرحيم ومادتين بيولوجيا فصل فورم 3 chapter 3 chapter كسدحات oo aynu ku baranayno ama aynu hore ugu soo jirnay human physiology waxaanu soo qaadanay qaybta digestive system oo ah dheefshiidka waxaan kala soo qaadanay circulatory system oo ah dhiig wareega waxaan kala soo qaadanay respiratory system oo ah neefsashada maanta ardayay waxaynu baranaynaa cashirkeena toddobaad oo noqonaya excretory system habdhiska qashinsaarka waxaan isweydiinaynaa what is excretory system muxuu yahay habdhiska qashinsaarka su-aasha hore isweydiinayna waxay noqonaysaa excretory system habdhiska qashinsaarku is a system waa habdhis which involves kaasoo shaqadiisu tahay the removal of wastes in jirka laga saaro maadooyinka wasakhda ah ama haraadiga ah waste products markii respiration dhaco waxaa soo harayo carbon dioxide liverka markii uu burburiyo wuxuu soo saaraya maado uric acid oo iyaduna urea oo jirka waste ah haddaba habdhiskani excretory systemka ayay shaqadiisu tahay removal of waste product from the body in jirka laga saaro maadooyinka wasakhda ah waay haddaba waxaan isweydiinaynaa what is excretion waa maxay qashinsaar qashinsaarku is a removal waa in laga saaro from jirka from organisms noolayaasha in laga saaro of toxic material shayaalaha sunta ah and substance iyo walxaha oo in excess aadka ugu badan of requirements tusaale ahaan jirka waxaa ku bata biyaha waa laga saarayaa oo si lagu gaaro xaalad isku dheeli tiran haddaba marka excretionku waxaa la yidhahdaa qashinsaarku ma dhihi karno marka saxarada jirka laga saara excretion ma dhihi karno that's what defecation excretionku wuxuu noqonayaa is a removal of from the organism of toxic materials shayaalaha sunta ah ammoniyada noolayaasha inay iska saaraan sida molluskaha ama invertebrateska uric acidka iyo uriyada in waxyaabaha la yidhaahdo nitrogenous wastes in waxyaabaha haraadiga ah laga saaro jirka ayay shaqada tahay waay waxyaabahaas waxaa ka mid ah the waste product of chemical reaction marka uu dhaco falgal kiimikeed waxyaabaha ka dhalanaya waste productiga ayaa jirka laga saarayaa sidoo kale waxaa jirka laga saarayaa excess water biyaha ziyaadada ah and salts iyo macdanta milixda ziyaadada ee jirka ku jirto cunada aynu qaadanayna la socotay ayaa jirka laga saaraya markaan leenahay waxbaa la qashin saaraya maxaan fahnay in la qashin saarayo waste productska like sida urea uric acid and ammonia sidoo kale maxaa la qashin saaraya excess water biyaha dheeriga maxaa kaloo la qashin saaraya spent hormones spent means used spent hormones means used hormones hormoonada aynu isticmaalnay oon shaqadooda ka dhamaysanay ayaa la yidhaahdaa spent hormones haddaba haddaan sidaasi fahnay inuu yahay excretory system haddaba roolka ay ku leeyihiin xubnahan soo socdo liver tusaale ahaan haddaan soo qaadano beerku qashinsaarka doorka uu ku leeyahay muxuu yahay the liver haddaan wax yar ka sheegno waa is the largest gland in a human body markaan ka hadlayno qanjidhada waa kan ugu weyn jirka bini aadanka the liver breaks down waxay shaqadiisu tahay saan naqaano inuu burburiyo excess amino acids amino acidka proteinka aan isticmaalno aan ka samaysano waxa kaloo dheeriga ah beerka ayaa la geeyaa digestionka kusoo baranay so this excess amino acidska waa in jirka laga saara aan loo baahnayn oo maxaa laga dhigaya waa la burburinaya deamination lagu sameynayaa amine groupka laga saaraya amine groupka maxaanu naqaanaa NH2 this amine group ayaa laga bixinaya deamination waxaa soo haraya urea this urea waa maadada la excrete gareeyo liverkana uu soo saaro liverku waxyaaba uu soo saaro ka mid sidoo kale the yellow green bile pigment midabkan qarasta yellowga ah ee jaalle xigeenka ahi isaguna oo la yidhahdo bilirubin waa breakdown of product of hemoglobin saan naqaano red blood cellka 120 maalmoodba waa la baabi'iyaa waxyaabihii haraadigoodii waxaa la geeyaa liverka wuxuu ka sameeyaa maadada la yidhahdo bilirubin bilirubintu waa maxay waa productiska burburinta lagu sameeyey
hemoglobinta. Bilirubin ayaduna is excreted waa la soo saaraa with the bile-ka lagu soo daraa. Marka bile-ka uu soo sameynayo liverka bilirubintaas lagu soo darayaa kadibna waxa lagu shubayaa in the small intestine xiidmaha qarada yar ama mindhicirada qarada yar kadibna expelled waxa lagu darayaa with the feces. That is what makes the feces bronchial. midabka brownka in saxarada yeelato waxa u yeelaya maadada bilirubinta ee bileta la soo raaciyay ee kadibna saxarada raacday. This pigment undergoes changes in the intestine markay gaasho waxa ku dhacay isbedelo and is largely responsible for the bronchial of the feces. waxayna mas'uul ka tahay midabka brownka ee qaxwiga ah ee saxaradu yeelanayso waa maadadaas la kiskargdiray. halkaani waxaan ka fahmi doonaa liverku inuu u shaqeyn karo as an excretory organ xubin qashin saar. sawirkaani animationkaani wuxuu muujinayaa liver beerku sida idin muuqda beerku qaybna waa u weyn yahay qaybta horena waa u dhuuban yahay. sawirkaasi waa organka la yiraahdo liver. sidoo kale excretory organiska markaynu baranayno waxaa kamida langis sambabka. sawirka muuqaalkani wuxuu inoo muujinayaa langiska marka carbon dioxide-ka laga qaadayo alveoli si ay u geeyaan dibadda markuu exhalationka dhacayo dibadda loo saaro. marka langisku maxay yihiin? langis saan naqaano doorkoodu supply waxay siiyaan dabaari jirku maxay siiyaan oxygen. intaan lidkeedana they also excretory organ waxay kaloo u shaqeeyaan xubin qashin saar. why? because they get right carbon dioxide. maxaa yeelay waxay qashin saaraan carbon dioxide-ka ayay qashin saaraan. okay, they also great deal of water fiber. sidoo kale jirkeena wuxuu kaloo lumiyaa biyo umibaxa oo marka qofka uu hadlayo raacayo oo fiber ah umi ah. sidoo kale biyaha ku lumiyaa jirka. so it excretes langisku maxay qashin saaraan water biyaha aan iyo carbon dioxide. xubnaha excretory organiska aynu baranayno waxaa kaloo ka mid ah xubinta saddexaad kidneys kelida sida kaaga muuqdo waa waxaas bean shaped leh muuqaalka digirta oo kale ayuu leeyahay. kidneys waa labo right iyo left waxayna ku yaalaan qaybta abdominta ubucda ku jirta hoose ubucda hoose ee jirka bini'aadamka. the kidneys remove shaqadooda waxaa ka mid ah they remove waxay ka saaraan jirka uriyadu waa maadada aan dhahnay marka la burburiyo excess amino acids in the liver maadada la soo saaray ayaa la yiraahdaa urea. this urea waa toxic laakiin sunteedu sida ammoniada kale uma badna waa less toxic way ka yartahay xagga sunta laakiin jirka bini'aadamka waa in laga saaraa si aysan u sameyn. hadday excess of urea accumulates in our body it may cause dangerous waxay samayn kartaa halis caafimaadkeena ku noqon kartaa. so waa in jirka laga saaraa. keliyuhu maxay qabtaan marka in ay jirka ka saaraan this nitrogenous wastes from the blood dhiigga la socday. saan ognahay keliyadu waa filtration waxaa soo mari doona dhammaan 6 litir ama 5 litir ee dhiig ee jirkeena ku jiraay every 5 minutes waxay soo maraan keliyaha si looga sifeeyo maadooyinka sunta ee la socdo. so marka maxay sameeyaan keliyuhu they expel excess water. yes, jirkeena waxaa loo baahan yahay inuu isku dheelitiran yahay biyihiisa. hadday biyuhu bataanna xaaladaas carqalad waxaa ku dhacayo cellska inay dilaacaan because animal cellku ma lahan wax ka difaacay they rupture. so si arrintaasi u dhicin waa in biyaha badan laga saaraa. biyo keli miyaa la saaraya as well as salts waxyaabaha milixda ah mineral salts iyo hormoniska ee la shaqadooda laga dhamaystay drugs iyo daawooyinka jirkeena galay. saad ogtay daawooyin qaar ka mid markaa qaadatid midabka kaadu isbedelayaan oo maxay isku bedelayaan this chemicalska aan loo baahnayn ayaa la soo raaciyay kaadida si dibadda loogu bixiyo. way xubinta afaraad aynu u isticmaalno an excretory organ xubin qashin saar waxaa ka mid ah skin maqaarka. maqaarku waa maxay? maqaarku xubinta ugu weyn ee jirkeena waay. waxaa la yidhaahdaa 8% boodiga jirkeena boqolkiiba 7 ilaa boqolkiiba 8 waxaa ku dahaaran waxaa haysta skin. sidaa daraaddeed skin is the largest organ in the body. jirka xubinta ugu weyn ee jirkeena ayuu yahay.
shaqooyinka haddaba iskiinka unoo qabto waa maxay aad bay u badan yihiin laakiin annaga as an excretory markaan ka hadlayno qashin saar excretion unoo qabtaa iskiinka oo muxuu sameeyaa eliminate wuxuu meesha ka saaraa waste substance waxyaabaha haraadiga ah sida traces of urea ureyadii ayna kaadida ku saareen kelida wax yar oo ka mida jirka way ka soo baxdaa marka keliyaha ay ka jiradaan dadka waaweyn ee da'da ah ee xanuunsadaan dhididkooda wuxuu isku bedelaa urta ureyada ayaa ka soo baxdo maxaa yeelay skinkan wuxuu u shaqeeyaa as an excretory organ wuxuu kaloo saaraa lactic acid salts and water sidoo kale waxaan naqaanaa skinku shaqadiisa protection yes it protects from our body to enter pathogens cudur dhaliyaasha inay jirkeena galaan isaga ayaa naga dahaara naga qabanayo sidoo kale wuxuu inoo qaabilsan yahay thermoregulationka markii laga hadlayo temperatureka heerkulka jirka ayuu ka qayb qaataa in la dheelitiro sawirkiisana skinka markii aynu qaadno wuxuu yeelanayaa lakabyadaas epidermis dermis and subcutaneous layer ama hypodermis ayaa loo yaqaanaa timaha halkaas ay ka soo baxaan hair follicleska skinka waxaan ku baran doonaa fasalka form 4 markaan baranayno sensiska maadaama halkaas aan wax uga dhigaynaa xubin dareenwad waayo maanta waxaanu baranaynay skinku in uu u shaqeeyo as an excretory organ xubin wax qashin saarta waayahay aynu soo galno haddaba markaan ka hadlayno excretory organiska keliyaha aad muhiim inoo ah waxaynu baranaynaa qaab dhismeedka keliyaha iyo shaqada ay qabtaan bal marka hore aynu ka hormarno structure-ka ay structure-ka kelidu the kidney are two bean shaped organs labada keliyood waa laba xubin oo muuqaalkooda u eg yahay sida digirta oo kale marka aan leenahay waa habkaas waa labo waayahay they are oval shaped reddish brown structure waxay u samaysan yihiin habka muuqaalka maadaama qaybna ay u dhuuban yihiin qaybna ay u ballaaran yihiin oval shaped ukunta oo kale midabkooduna waa brown uu ku jiro casaan uu ku jiro reddish brown waa midab qaxwi guduud casaan isku jira waxaa dusha ka saaran transparent membrane xuub khafiifa oo waxa ka shisheeya la arkaya dusha ka saaran keliya waxayna ku dhegan yihiin attached the back of the abdominal cavity maqorka ubuucda qaybta dambe ayay ka saaran yihiin labada qaybood ee labada dambe each kidneys keli kastaay waxay ka kooban tahay laba party dag outer zone midab mugdi oo casaan oo mugdi ah oo madow ah oo muuqanayo markuu qofka arkayo isheen aan ku arkayno oo la yidhaahdo the cortex waa inta kore intaan waxay noqonaysaa cortex waa inta sare cortex dhexdaani waxaa ku jiro waxyaaba la yidhaahdo pyramids maadaama muuqaalka ahraamta ay u eg yihiin sidaas ayaa waxaan u niri pyramids qaybta pyramidska ku dahaaran ee dhexda iftiinka ahna waxaa la yidhaahdaa medulla labadaas qaybood ayay kelida ka samaysan tahay inta mugdiga ah ee outerka daaga ah ee la yidhaahdo cortex iyo qaybta lighterka ah oo iftiinka ah ee la yidhaahdo zoonkaasi medulla dhexdaan aan hadda ku sameeyey bokisyadaasina waan arkaynaa waxaa la yidhaahdaa pyramid okay sawirkani idiin muuqdo waxa uu muujinayaa baartiyada ay ka kooban tahay kelida oo qaybta kore ay qanjirkaasi waxaa la yidhaahdaa qanjir keliyeed adrenal gland wuxuu soo daayaa hormoono isagu hadda ugama hadlayno qaybtani waxaan uga hadli doonaa endocrine-ka habkani waxaa hoosta idiin muuqdo qaybta la yidhaahdo cortex waa qaybta sare qaybta dhexda ahna waa medulla bokisyadaas kuskusanna waa pyramid waxaa kaloo halkan nooga muuqda laba halbowle iyo aroore arooruhu waa qaybtaasi radhka ah casaanka ah ee la yidhahdo renal artery oo waxa uu soo galaa kelida waxa uu keenaa dhiig oxygen leh kan kalena waxaa la yidhahdaa renal vein waxaa ka baxo kani waa halbowle renal artery waxaa la yidhahdaa halbowle keliyeed renal veinna waxaa la yidhahdaa aroore keliyeed
kelida ayuu ka baxaa wuxuu u socdaa wadnaha waa dhiig la sifeeyey oo sunti laga saaray oo loo wado wadnaha in lagu daro kadibna sambabka la geeyo si oxygen loogu soo daro sawirkaasi waxaan filayaa inaan ka boganay qaybta ku xigtana waxaa la yidhahdaa lise ureter oo markii biyihii iyo yuuriyadii iyo kaadidii la waday ayaa halkaasi laga soo bixiyaa waxaa jira laba lise oo midkiiba ka soo baxayo each kidney keli kasta waxaa ka soo baxo lise sawirkani hadda aan muujinayo waa ureter waxaa la yidhahdaa lise ureterku wuxuu ku dhammaadaa balaada oo ah kaadihays wuxuu ku dhammaadaa bladder oo ah kaadihays bladderkuna waxay ku sii dhammaataa urethra oo ah marinka kaadida this waxaan dhahnay waa he kidney waa kilida kana maxaan ku sheegnay kan ku xigaya waxaan ku sheegnay ureterka muxuu ahaa waa lise aad ila soco waa ureter okay halkani waa maxay waa kaadihaysti maxaa la yidhahdaa balada haddaba garo ma aha gol balada xameyti ma aha hee waa bladder waa kaajihays ama kaadihays hadba sidaa u taqaanid kanina waa maxay waa urethra this one is ureter while this one is urethra oo ah marinka kaadida kana waa lise kaadida ayuu wuxuu ka soo lisaa kelida waayahay intaas intaan oga baxno kidneydu waxaan hadda sheegnay inay leedahay laba blood vessels laba xidido dhiig oo kala ah renal artery iyo renal vein renal artery waxa kuu ka yimi from aorta xididka garka ee wadnaha ka soo baxaya ee jirka u socday ayuu ka soo faracmaa kadibna wuxuu noqdaa renal artery kelida ayuu geeyaa dhiig waa halbowle keliyeed kan kalena waa maxay renal vein asaga xaguu ka faracmaa isagu wuxuu ka baxaa from the kidney xaguu galaa vena cava oo ah the largest vein arooraha ugu weyn ee wadnaha galo sidaas ayay ku kala duwan yihiin the kidney consists of many capillaries waxay ka kooban tahay capillariyo tiiftaafyo badan oo tuubooyina la yidhaahdo renal tubules ayay ka kooban tahay markii aynu hab longitudinal section aynu u goono kidneyda sida hadda sawirka hore nooga muuqanaysa waxaan ka arkayna laba qaybood qayb dhaag ah oo la yidhaahdo cortixiska iyo qayb light ah oo la yidhahdo medulla marka ayaga laga soo tago halkaasi dhexda ah ayaa la yidhaahdaa belvis halkaas ayaa waxaa la yidhaahdaa belvis way ureterku muxuu ahaa marka waa kane waa lisee muscular tube waa tuubo muruqaahi that runs ka soo bilaabato from each kidney labada keli buu ka soo baxaa intuu imaada to the bladder kaadihaysta to the lower party shaqadiisuna waa maxay to carry the waste product and urine from the kidney inuu ka soo qaado intuu keenaya to the bladder shaqadiisu waa maxay marka transport or ama he carry wuxuu qaadaa maadooyinkaasi way waxaa inoogu xiga urinary bladder kaadihaystu shaqadeedu waa maxay store urine kaadida ayay kaydisaa si hadhow hadhow markii la amro in la sii daayo ay u fasaxdo waa is an organ that collects shaqadeedu waa maxay inay ururiso waste excreted waxyaabihii qashinka ahaa ee laga soo qashin saaray by the kidneys keliyaha ayay shaqadeedu tahay inay ururiso ureteruna waa maxay isaga waa tuubo which connects to the urinary bladderka iyo ku xiran tahay sida idiin muuqdo waliba outside of the body jirka dibadiisa ayay u saaraysaa xubinta taranka ragga iyo xubinta taranka dhadiga ayuu dhex maraa waa marinka kaadida kadibna urinka dibadda loo saaraa urintaasi enters the bladder through ureter kaadida markay halkaas soo gelaysay lisaha ayaa keenay and exits and passes through away dibadda waxaa looga saaraa via uretra kaadida waxaa lagu keenaa ureter waxaana lagu bixiyaa uretra mar kale sawirkani wuxuu inoo muujinayaa labadii veinka maxaa midabkiisa ka dhigay green kala waa deoxygenated oxygen ma lahan
oxygenka ka yarkan kala red maxaa ka dhigay hemoglobinka ayaa red ka dhigtay haddaba marka xididkaasi dheer ee gududani waa halbowle waxuu ka soo baxaa oortaha garka wuxuuna galaa kelida kana kelida ayuu ka baxaa wuxuu galaa fenikafa muuqaalka sawirkaasina waxaan kaga faa'iideysanaynaa inta jaallahana waa ureter lisihi dhexdaasna kuusana waa ureter iyo waa urinary bladder cadhesti meesha u dambeysana waa ureterki guud ahaan haddaynu soo koobno shaqada kelidu maxay noqonaysaa regulation of blood water level biyaha dhiigeena ku jira concentrationka dilate miya or concentrated miya kelideena ayaa xakameysa shaqadaas way qabataa iyadoo la adeegsanayso labada hormoon ee kala ah ADH iyo aldosterone reabsorption of useful substance in the blood shaqada kale inoo qabato glucose badani kaadideena ma la raaciyo sababtoo ah glucose waa u baahanay waa organic substance jirku baahan yahay reabsorption in lagu sameeyo dib loo celiyo shaqadaasi kelida way qabataa gaar ahaan waxay ku qabsataa structure-ka aan baranayno cashirkeenan la yidhahdo nephron sidoo kale waxay habeesaa adjustment ku sameysaa the level of salts xaddiga milixda ee ku jirta dhiiggeena sidoo kale waxay shaqadeedu tahay excretion of nitrogenous wastes waxyaabaha nitrogenous wasteska aan ku soo sheegnay ee kala ahaa maxay kala ahaayeen ammonia urea uric acid waxyaabahani waxay ahaayeen waxyaabaha nitrogenous maxaa yeele dhiskooda ayaa nitrogen ku jira sababta aynu dhehno how the kidney works kelida say u shaqeysaa dhiig waxaa soo gelayo oo waste product la socdo oo la soo bambeeyey jirka laga keenay aortaha laga keenay dhiiggaasi oxygen wuu wataa waa fiican yahay kelida la keenaya renal artery ayaa keenayo kadibna halkaas waxaa ka dhacayo filtration waxyaabaha cellska waaweyn iyo proteinada iyo mabaasayaan waa la celinayaa waxyaabihii wastiga ee la socda qashinkii baa laga soo saarayaa waste product urine bladderka la geenaya kaadiheysta wixii nadiifka ahaana waxaa qaadaya renal vein oo wadnaha ayaa lagu celinaya sidaas ayay kelidu u shaqeysaa summary haddaynu soo koobnay wixii aan ka sheekeynaynay waxaynu ka soo hadalnay in excretory organs ay jiraan excretory organs xubno wax qashin saara xubnahaas wax qashin saara oo ka mid ahaa maqaarka skin muxuu qashin saaraa water urea and mineral salts biyo urea iyo macdan keliyuhu waa xubin qashin saar maxay qashin saaraan waxay qashin saaraan water urea ammonia uric acid and mineral salts langiska sambabku iyagu maxay qashin saaraan sambabku waxay qashin saaraan carbon dioxide and water carbon laba oxide iyo biyo liverka isaguna ammonia urea uric acid oo isku dhihi karo wuxuu qashin saaraa nitrogenous base ardayda cashirkeeni koowaad ee qashin saar